xaq bay u leeyihiin beelweynta subeerawal maadaama oo codka ay lahaayeen 90% in dee damac ka galo inay cid kale ka soo sharaxaan ha noqoto shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee awdal ha noqoto waxa weeye iyagu inay dee 100 habeen ka sii maqnaa inay mar labaad soo sharaxaan ha noqoto inay cid kale ka sharaxaan xaq waxay u leeyihiin damaca maadaama 90% sida masiirkii ceelaf weyn sida mashiirkii beelweynta G36 ee garxajis suldaan sabayste sidaan idin sheegay wuxuu taagan yahay dee waqtigii cadda gudaanu riixaynay cid kasta oo waxa weeye beesha dhexdeeda aanu siinay awoodii ugu sareysay wuxuu haystaa shacbiyadii beelweynta subeerawal sidaa daraadeed arrin la dhayalsan karo maaha falalka ka dhalanaya madax dhaqameedka iyo arinta waxa weeye xisbiga ee 90% shacbiga subeerawal ay taageereen ama go'aamiyeen in xisbiga kulmiye la soo baxaan dee taasi waxay abuuraysaa kacdoon shacab oo aan dan u ahayn xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan dan u ahayn shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland wixii garac ee dawa ee xaqa ee cadaaladana dawa waxaan magaca ula baxnay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلكم waxaan ka salaamayaa shacbiga jamhuuriyadda ana ku salaamayaa magaca caaqilka jamhuuriyadda waxaan jecelahay inaan dhowr kelmadood runtii ka yiraahdo muxuu ahaayay gacan ka hadal iyo qalalaasay saaka ka dhacay xarunta guud ee xisbiga kulmiye oo runtii dee waxa weeye uu nahay damac siyaasadeed oo dee la isku maandaafay arrinta waxaan u arkay inay ka dhalanayso kacdoon shacab oo 90% dee waxa weeye beelweynta subeerawal ay ahaayeen shacbigii soo saaray xisbiga kulmiye sida la socoteen shirkii beelweynta habar jeclo ee ceelaf weyn waxay habar jeclo go'aamisay inay la soo baxdo xisbiga kaah ka garxajis ahaan annaga waxaanu go'aaminay inaan waxa weeye soo saarno xisbiga wadani oo xisbi ahaan soo saarno aragtida sida ku salaysan de runtii haddii maaragtay jujuub iyo xoog ay ka dhalato de waxaa imanaya uun kacdoon dadweyne ma yara 90% in taageerayaasha xisbiga kulmiye ee taageeray xisbigaasi inay dhalinayso kacdoon aad u ballaaran oo kaan ku cararayno ah runtii aan ku celiya mar labaade arrinta madax dhaqameedka waxay ula muuqatuun beelweynta subeerawal argoosi siyaasadeed oo madax dhaqameed oo waxa weeye waqtigii khilaafka siyaasadda runtii dhex maray suldaan xasan suldaan ayaanle iyo suldaan sabayste taa lafteeduna dee may ahaynuun in kacdoon shacab iyo qayle iyo fawda ka dhalatay waxay hayduun in la xaliyo oo khilaafka lagu dhameeyo wada hadal iyo isafgarad oo runtii dee anigu baan jecelahay inaan arrintaa dadka ka shaqaynaya aan u taagan inaanu nahay sulxa iyo wada noolaanshaha ummadda madaxweynihii hore jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha haatan talada haya waxa weeye dee si qurux badan bay xilka isugu wareejiyeen si qurux badan bay isu laabxaadeen si qurux badan bay waxa weeye nidaamkii transitionka ee dawladnimada isugu wareejiyeen taasi inay madax dhaqameedka dhexdooda gashana runtii dee way ahayd oo waxa weeye dee la xaliyo oo aanay noqonin argoosi madax dhaqameed loo arkin falalka ka dhalanaya madax dhaqameedka iyo arinta waxa weeye xisbiga ee 90% shacbiga subeerawal ay taageereen ama go'aamiyeen in xisbiga kulmiye la soo baxaan dee taasi waxay abuuraysaa kacdoon shacab oo aan dan u ahayn xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan dan u ahayn shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland wixii garac ee dawa ee xaqa ee cadaaladana dawa waxaan magaca ula baxnay waxaan jecelahay in ummaddu wada noolaato inaan waxa weeye fawda laga dhex abuurin xisbigii kulmiye xaq bay u leeyihiin beelweynta subeerawal maadaama oo codka ay lahaayeen 90% in dee damac ka galo inay cid kale ka soo sharaxaan ha noqoto shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee awdal ha noqoto waxa weeye iyagu inay dee 100 habeen ka sii maqnaa inay mar labaad soo sharaxaan ha noqoto inay cid kale ka sharaxaan xaq waxay u leeyihiin damaca maadaama 90% sida masiirkii ceelaf weyn sida mashiirkii beelweynta G36 ee garxajis waxa weeye midnimada wada jirka shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wada noolaanshuhu wuxuu ku xidhan yahay in dareenka iyo bulshadu dhinacay u badantay waxa weeye la ilaaliyo suldaan sabayste sidaan idin sheegay wuxuu taagan yahay dee waqtigii cadda gudaanu riixaynay cid kasta oo waxa weeye beesha dhexdeeda aanu siinay awoodii ugu sareysay iyadoo cid waliba dee ay joogto runtii oo waxa weeye shacbiga G36 ama beelweynta garxajis ka mida wuxuu haystaa shacbiyadii beelweynta subeerawal sidaa daraadeed arrin la dhayalsan karo maaha waxaana xalka quraata uu yahay in sulxa iyo midnimada iyo wada jirka laga shaqeeyo oo runta la isu sheego in waxa weeye argoosiga madax dhaqameed ee ay u arkaan beesha subeerawal suldaan xasan iyo la isu keeno suldaan sabayste arrinta muxuu ahaayay xisbiga kulmiyana mudnaanshaha koowaad la siiyo beeshii 90% codka lahayd si loo ilaaliyo qarannimada wada jirka xukuumadda 100 cisho jirtana
dhiiqada iyo qaylada iyo fawdada iyo qalalaasaha dee iyadana looga ilaaliyo. Asalaamu calaykum.